السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله جل وعلا waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa aad u cajiiba oo ku saabsan qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kalsoonaada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saarta inuu Rabbi subhanahu wa ta'ala dayacaynin. qisadani waxa ay ku dhacday sheekh على قيد الحياة هذا النول والنول الكوغا شيخ سولي هذا عبد الحليم أيا مركالي هذا شيخ لفتقيسة أيا قصدا كورمي برنامج مركاتي في كبحيي أيو شيخ مركا كجور بحيي قصدا كجورمي مركي عند جيستي آد بي مركا إيسو تشيدتي waxaan jeclaysay inaan turjumaan af Soomaali bal hadda ku bedelo maadaama dad fara badan oo inaga mid ah af Carabiga marka si fiican u fahmay waxa uu sheekhu yiri taariikhdu markay mareysay 1418 hijriyada 1418 hijriyada ayaa waxa uu sheekhu yiri asaabani wa haajamani maradun khatiir mumit waxa sikadiisa igu soo booday oo igu dhacay soo weeraray xanuun khatar ah oo dilaa ah ilaaba wax dilay laakiin xanuun yaani halis oo de qofka sabab u noqonay inuu dhinto waxa sheekhu wa kuntu fi Jidda waxaan ku noolaa oo aan deganaa magaalada Jidda dabeetana wuxuu yiri waxaan u tagay mustashfayaadkii ama dhakhtaradii magaalada Jidda ku yaalay oo dhan ayaa markaa tagay buu waxa isku waafaqeen buu dhamaantood in xubinkaas xanuunkaas iga helay oo noqday xubin markaa raja Allah an hada al-'ud alladhi usibtu asbaha talifan la yurja bur'uhu yani in xubinka xanuunkaas iga dhacay oo finish noqday oo aan laga rajeenayn wax markaa bogsasho ah waxa uu sheekhu yiri kii ugu dambeeyay dhakhtarkii ugu dambeeyay tagay baa wuxuu ugu yiri la tat'ab nafsaka naftaada waxba ha dhibin laysa amaamaka siwa shahri hortaada ma ahaanin yaani wax fursada oo aad haysataa ma jiro ilaa bil baad haysataa bil baa noloshaadii kaaga hadhay bisha kadibna tamuut waad dhimanaysaa waad qiyaasan kartaan dabcan qof lagu yiri waad dhimanaysaa dhaqaatiirtuna isku waafaqeen inuu bil kadib dhimanayo emotionkiisa amaba shucuurtiisu sida ay noqonayso inagoo in miisaanka saarnay hadii maanta mid inaga mid ah oo magaalada degan dhaqaatiirta meesha joogta ay isku raacaan inuu bil kadib dhimanayo qofkaas xaaladiisu dabcan wax way halis bay galaysaa moral jabba ku dhacay wax weeye qoosasha ku dhacaysa wuxuu sheekhu bir ramadaan bay ahayd wuxuu ramadaan taniga imaamaha dabcan xaafid buu ahaa sheekhu Abdul Halim bin Abdul Mun'im balida xaafid buu ahaa li kitaabillah subhanahu wa ta'ala wuxuu bishii ramadaan tahajjudkiya taraawixdii ana markaa ku jiray qaybid dambe marka la soo gaaray ramadaanta ayaa waxaan dareemay buuri taab yaani daal xanuunkii baa markaa wax weyn ka soo fiday wuxuu yiri xanuunkaas waxa iga dhacay xubin jirka kamid ah oo muhiim ah ayuu markaa iga dhacay waana xubinka loo yaqaan kibidka ama beerku qaybaha muhiimka ah ee jirkeena ayuu kamid yahay beerkaas uu xanuun markaa iga dhacay buuri waxa sheekhu markii aan tageynay dhaqaatiirta aynu markaa aan socday oo aan tagayay waxa igu weheliyay safarkan aan walaalnahay oo isaguna markaa dhaqtara iyo aabahay buuri dabeeto markii dambe waxaan markaan ka soo noqday dhaqtarkii ayaa waxaan go'aan ku gaadhay faqarartu an ukhbirahu inaan odaygii aabahay ahaa warka aan siiyo ayaa markaa go'aan ku gaadhay buuri dabcan wuxuu yiri aabahay mu ogeyn xanuunkaas beerkaga hayeen muddo la soo noolaa laakiin intii hore markaan xanuunkan yara dareemo dawaan qaadan jiray oo nooc ma waan iska bogsan jiray buuriyo marxaladan maanta uu gaaray weligii ma uusan gaadhin
markaa wuxuu yidhi aabbahay noocama waan ka baqayey inaan warka aan siiyo u warramo wuxuu islaaday waa waalido waa beero uu de ka naxaya isna wuxuu yidhi waalidkaa ka naxine laakiin arrintu waa daruuri waa laabud inuu ga warrama waa laga maarmaan markaa wuxuu yidhi jalastu macahu bihuduu'in si wax weeyaan xasilooniya oo deganaashale ayaa marka ula fadhiistay dabeetana waxaan u warray buu yidhi warka siduu u dhammaystiray anaan waxba marka aan ka qarin talo markaa maxay noqonaysaa jawaabta waalidka u fiirsada baarakallahu fiikum waa meelaha aan doonayno in tooshka ku ifno aynu wax kala baxno weeye wuxuu yidhi aabbahay markaan warka aan siiyey wuxuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahadle dad fara badan oo kula mida ayaad ka wanaagsanta oo adigu markaa wax weyn ka khayr badanta talo waabu dhimanayaayo bil kadib baaba lagu yidhi waad dhimanaysaa ee khayrka odaygu sheegaya markaa muxuu wuxuu yidhi odaygaa u sii faahfaahiyo aabbihii weeyaane wuxuu yidhi khayrkaa waxaa laga yaabaa an yakhruja rajulu min beyti yatlubu risqa allahi subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa aroortii inuu gurigiisa ka baxo isagoo ilaahay arsaaqadiisa markaa raadinaya dabeetana gaadhi uu jiidho sidaa uu ku dhinto aanu guriga ku soo laabanoo dabeetana xabaasha toosu tago waa runtii dad fara badan baa jira iyagoo caafimaad qaba aroortii guryooda ka kalahaya oo arsaaqadii markaa dee raadsanaya dabeetana ama gaadhigaasi uu jiidho ama maxaanku idhahdaa dhisma uu ku dumo ama ceelban wax weeyaan ku dhaca xabad iska socota ay qaado qaarkood baa jira iyagoo iska fadhiya caafimaad qabo qosleeya wadnuhu istaago dabeetana wax weeye sidaaba ku dhintaba marka wuxuu yidhi adigu dad fara badan baa dhaantaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala jaanis buu ku siiyey amaamaka shahr kaamil bil dhammaystiran baa hortaadii ahaatay wuxuu yidhi yaa bunaya fa ariini maadaa tuqadimu liaakhiratika waxaad tustaa wiilkaygiiyo bal waxaad aakhiradaad u qadimanayso oo aad iska sii horraysiinayso bal haddaa i tus lianna alrixla tawiila wazaad qaliil maxaa yeelay safarkan aakhiro waa safar tawiiloo dheer sahayduna way iska gaabanta bal wax weeyaan qiimaha aabbaha u fiirsada baaraka allahu fiikum aabba wuxuu ahaa mala iimaanu qalba yacni iimaanku qalbigiisa camiray oo uu buuxiyay ayuu marka ahaa innaga maanta haddii mid inaga mida wiilkiisu saa ka odhan lahaa bal ka warrama yacni calaacal baa ka dhici lahaayo jasac iyo argagax baa ku iman lahaayo isaga waxaasoo ilahay waa ka nabadgeli dabeetana waxuu sheekhu leeyahay intaasi marka ay dhacday ayaa wuxuu leeyahay katabtu wasiyatii uma sallamtuha ilaa abi waxaan markaa qoray buu yidhi daardaarankii ayaa markaa qoray dabeetana aabbahay ayaa markaa u dhiibay wa akhbartu zawjatii wa awlaadii alkhabara waxaan kaloo u sheegay warka xaaskii iyo ciyaalkiina wixii say waxu jiraan baan u warramay waan u faahfaahiyey buuri dabeetana wuxuu yidhi uma jalastu fii ghurfatin khasasuu lii wa taraktu alcamala waxaan iska fadhiistay buu yidhi qol ay ii gaar yeeleen oo ii khasiseen oo ii gaar yeeleen ayaa markaan iska fadhiistay camalkiina waan dee iska daayay buu yidhi dabcan dee qof la yidhi bil kadib baa dhimanaysa isaga amateed u hayaba camal markaa wuxuu yidhi qolkii baan iska fadhiistay xaafadiina waan u warramay qol baan markaa iska dhex fadhiistay waxaanaan qaatay buu yidhi musxaf qur-aan ah iyo markaa maxaanku idhahdaa casal oo malabkii ah xabatu sawda waa xabaasuudi iyo maau zamzam biyaha samsamka intaas ayaa markaa aan qaatay dabeetana wax weeye intaasan ayaa markaa aan qaatayoo aan qolkii markaa dhex dhigtay buuri ama saa'iru alacima cuntooyinka kale wuxuu yidhi nimankii dhakhaatiirta markii horeba way iga mamnuuceen xaramuu calaya kulla alacima buuri waxallo wixii cuntaa daa caadiga basharku ay cunaan oo dhan ayay gu yidhahdeen ha cunin waxaanu sheekhu leeyahy ficlan cuntooyinkaa kale markaan cunaba calaa tuul baan u soo celinay buuri yacnii cuntadaasay caloosheeday kumay sugnaane kumay nagaanayne horaan u soo tufay almuhim yaanan sheeka idinku dheeraynne wuxuu yidhi halkii baan iska fadhiistay anigoo markaa rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu dembi dhaafo ujeeddo kalena maan lahayn buuri
hadaf kala markaa ma lahayn waxaan isku tiriyay inaan ahay rajul min ahli al-aakhirah in aakhirat adduunyadina waan ka rajo dhigay khalaas waxaan sugayay buu halkaas iska fadhiisay antadiru malakal maut ana sugayay malakul maut bartii baan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku wax weeye markaa caawiday buu ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala bariyay ilaahay baan markaa aad ugu kalsoona ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala gacmaha hoos qabsanay waxa uu leeyahay habeenada kamid ah ayaa waxa dhacday waan soo istaagay buu dabeetan xataa wuxuu sheegay inaanu seexanba intii dambe wuxuu yiri waxaan isiri bil kadib baad yaani hurdo dheer gali doontaayo maxaabad ka seexanba takaleeto wax weey hurdadu marka la leedahay oo moraalku dhisan yahay ayay qofka hurdadii martaa qof laakiin waxa way dhimanaysaa maalmo kadib lagu yiraahdo hurdo way isteenaya wuxuu habeen baan soo kacay ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala bariyay waxaan ilaahayow adiga markii horena ay abuuray anoon jirin baad jirsiisay soo arkimays min al-adam baad iga abuurtay khalaqtani min adam waxaan jirin baad yaani jirid laan baad iga jirsiisay ila dadkana waxa jiri waqti dadku iyo basharkuba wax la sheegay maanu ahayn hala ta'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا waxa insaanka soo maray waqti wax la sheegaba aanu marka ahayn ilaahay markii hore min adam baad iga abuurtay haddana waad inooleyn kartaa ilaahay baan subxaanahu wa ta'ala bariye buu aad baan u fiirsaday ducadaas gacmi baan saraan u qabtay waxaan ilaahayow xaaladeeda waad arkaysaa asbaabtii kale oo dhan way iga oodantay dhammaan wasaa'ishii kale iyo wadooyinkii kale albaabadii basharka dhammaan waa iga oodanta ilaahay albaabkaaga sunba imika ay haday kaasunba ay furan ilaahay albaabkaaga iga xidhan albaabkaaga ilaahay subhanahu wa ta'ala bariibu quraanna waan isku akhriibu dabcan quraankuna waa shifaa waliba wuxuu ilaahay ugu maamusa markayga horeba ilaahay amarkii qofku ka markaan quraan ku akhriyo ilaahay waa ku bogsineeyo dabeetay ilaahay bariyo waxaan ilaahayow adoomadaadu markay xanuunsadaan ba quraankaagasaan ku tufayay waad ku bogsiinaysa anigana igu bogsii المهم شيخ وحوري وقتينا دخص بدنا واسكوريبوري يعني بشي واسكورسا شيء اتكبقيس marka ku soo food leedahay waqtigu wax weey marka yani waa yaraanaya marka wuxuu yiri anigu xaaladda isaga sugan oo de wax weeyaan geeridaas umayna wax kale oo sugayana aanay jirin noloshiina ka rajo dhigay ayaa waxa ii yimi buuri nin aanu saaxiib ahayn oo tabiib oo dhaqtara ninkaas macluumaadkaygii qaaday dabeetana waxa uu diray buuri meelo beerka lagu bedelo beerka dabcan iminka de horumar baa la gaaray qofka inta laga saaraaba beer kale loo geliyaa marka saddex xarumood waa sidoo sheekhu yiri oo beerka marka waqtiga lagu bedelayay oo midna ay ku taalay Qaahira talabaadna Paris ay ku taalay saddexaadna Tokyo adigu meelahaas ayuu marka u diray buuri waxa wali rajeynaya inuu yiri Masar Qaahira ayuu diray email bu marka dabcan ugu diraya macluumaadkiisa oo dhameystiran ku darso dhakhaatiirtii jidda waxay ku yiraahdaan xataa la yumkin az-ziraa'a beerkaagana in xataa dib marka loo beeraa suurtagal ma aha bay ku yiraahdeen dabeetana wuxuu yiri markaan u diray xoogaa muddo bay qaadatay aduu bacdayn muddada kadib wax weeye warbixintii bay ku soo celiyeen buuri warbixintii markay ku soo celiyeen waxa ay sheegeen in ay suurtagal tahay in beerka la bedelo waxa sheekhu markii rajay soo gashay deeylaa raxmadiisana laga ma quustaba ninkii saaxiibkayana wuxuu ugu yiri hawsha sidaasani waan tagayna aduu almuhim sidii baan ku tagay buu yiri waxaan tagay Qaahira halkii beerka lagu bedelayay baa markaa tagay dabeetana markii aan tagay bay baaritaan hor le ugu sameeyeen buu yiri markay baareen waa meeshan qisadu uga golnay way markay baareen ayaa waxa meeshii ka soo baxay waxaynan filimba waxaynan suuraysanba ayaa meeshii ka soo baxay wuxuu yiri waxay ugu yiraahdeen nimanku dhakhaatiirta ahaa wariya wax weeye ninkii bukay macluumaadkiisi aynu haynay adiga ma tihide wax weey bal ninka waa kuma ama ninka nagu yeed markaasaan subhanallah wa aniga ninka macluumaadka ka haysayni waa aniga dabeetana wuxuu yiri waxay ugu yiraahdeen adigu beerkaagu kuma xanuunayo beerkaagu waa caafimaad qaba
bale wax weeye waxa kugu jira beer wax weeye 2 bilooda bal ka warrama barakallahu fiikum beer 2 bilooda ayaa markaa ku jira sidaan ognahay qofka da'diisa iyo da'da xubnaha ku jira way isku dheeli tiriyay qofka duu konton jir yahay beer konton jir ku jiray qof 20 jir ama 30 jir ama 50 jir beer ilma 2 bilood ku jira lama arag hore loo ma arag marka wuxuu yiri way yaabeenba waxay noqotay arintu mucjiso arin wax way marka ay la yaabaan bu marka arinka noqday dabeetana waan yaabnay buu anigii baaba yaaba waxaan bal hadaa ku celiya baadhitaanko waaba ku celiyeeno waaba nafsu natiija sidii si lamida marka bay noqotay mid kala baan u tagno mise sidii leeg bay noqotay haddana wuxuu yiri marka arinku sidaa u dhacay aad baan u farxay dabeetana waan ka soo laabtay Jidda ayaan ku soo noqday buu marka Jidda ku soo noqday waxaan u imi kii ugu dambeeyay dhakhtaradii Jidda aan tagay buu yiri bil un baad haysataa ayaan u tagay buu yiri bishiina ay dhamaatay anoo marka iska socdo oo lugeynay ayaa marka u tagay ninkii waa yaabay hadduu beerkaygii baadhana ficiciisa ku noqotay buu waxa bay ugu beer aan weligiiba xanuun ciladii oo xanuun arag 2 bilood quraatay jira kaasay yaabeen wuxuu intuu ninkii yaabay madaxa qabsaday buu yiri halkee lagaga soo bedelay ma qaahira lagaga soo bedelay markaas ay yiri ma qaahira lagaga soo bedeline ilaahay baa marka wax weeyaan aniga ii bedelay ilaahay baa subhanahu wa ta'ala beerkan cusub siiyay marka almuhim qofkaas waad arkaysaa marxaladu marka uu gaadhay noloshiisu ay gaadhay leefalka heerku marka mariyay iyo sidoo ilaahay subhanahu wa ta'ala u badbaadiyay waxa marka doonaya inay yiraahdo qofka basharka ah duu ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saarto oo qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kalsoonaado ilaahay subhanahu wa ta'ala ma dayacayo waa hubaal way ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu san dayacaynin waa arin wax weeye la hubo weeyaan laakiin inaga badana de waxa dhacda qofku meelo kale isku haleynaya walaga yaabo qofka bukay xanuunsan ilaahay bariyo oo bariyadiisana raadkeeda hore aanu arag sababtu waxay tahay qalbigiisa meel kale ku tacalluqsan qofka ilaahina waa bariya nacam waxaanu isleeyahay de dhakhtar hebel baa iska tagi doontaayo haddii kaas waxba qaban waayana mid kale ka wanaagsan baaba tagi haddii kale dibadda lagu qaadiyo nooc ma wax way hawlaha saa ku jira laakiin qofku markuu qalbigiisu xagga ilaahay oo kaliya ta u soo jeesto waxan kale oo dhan wax weyn uu ka soo jeesto ilaahay subhanahu wa ta'ala wax weeye waa uu ka aqbalaya waa uu badbaadinaya waxa rabaa inaan sii raaciyo qofku iskama dhimanaya maalintu ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu tala galay dhimanaya naf kastaana waxay leedahay ajal musamman inda Allah subhanahu wa ta'ala muddo wax weeye magacaaban ay naf waliba ilaahay agtiisa ay ku leedahay naf iska dhimanaysa ma jirto naf waliba waqtigeedaas ay sugaysa sidaas awgeed waxa rabaa inaan bulshada aan iraado waayahan aynu ku jirno ama maalmaha aynu ku jirno dunidu way qasan tahay العالم الإسلامي عالم ككلبا وحين أكسرنا حنون كلا هذا فيروس كورونا إنه آذ وفاف سيهاي ما لا فرق بدنا بالشدة عالم كانوا هلايلي ما لها قارن ولي وسن إيمانين لكن فرط ودناه لوها يودتك آذ بقية وحرب عددك هنا يدعو ارتوا ميدو فيروس قف دليا متر فيروس قف دليا وحي بتشرو قفنا سيدي سبح حنون ومدنت wuxuu dhintaa qofku ajashiisa oo dhamaataba u dhintaa qofka dib boqol xanuun isugu tagaan iyo kun xanuun haday isku helaanba wax weey dhimo maay waxa wax dilaya waa ajasha way waqtiga lagu tala galay markuu ka dhamaado ayuma dhimanayso geeriduna waa uu isku mid way laakiin asbaabtu ma kala duwan malakumoodku waa mid asbaabtu ba kala duwan mid baa xanuun u dhimanaya fayrasa mid baa xanuun kale u dhimanaya mid baa xabas socota qaadaysa mid baa wadnuhu istaagaya mid bay daadku biyuhu la tagaya mid baa guriyuhu ay ku dumayaan marka hanin waliba asbaabtii ilaahay ugu tala galay ayuu marka de asbaab ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu tala galay asbaabtaas marka qof liba uu la kulmaya marka hadalka waan idinku dheereeyay waxa marka ku soo gabagabeynaya aynu ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saarano aynu ogaano cidda wax dilaysa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala isagu baa wax abuuro waxna dila waxna nooleeya cid wax dili kartaa ma leh fayrsana ku dili maay taa macnaheedu ma aha inaan idin leeyahay iyaan marka wax weyn la isdaweynin iyaan marka prevention ka wax loo yaqaan ama
wiqaaya ka hortag yaa la samaynin macnuusi ama ilaa inagoo tala saaranayna oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku kalsoon baynu asbaabihi la imanayna haday xanuun noqoto asbaabaha xanuunka keenaynu iska ilaalinna waxaynu jecelnahay haday noqoto asbaabaha wax weeye waxayna gaarsiin waynu la imanaynaa laakiin laabe mar waliba aynu wax marka tala saaraynaa hada wabillahi at-tawfiq was-sadad subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk